السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waa idin wada salaamay walaalaha ku xiran channelkeena Zack Multimedia maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago su'aal ka timid mid kamid ah walaalaha ku xiran channelkeena Zack Multimedia su'aashan waxay tahay sida tan runtii su'aashan waxay tahay sida NS1 aan hore aan u soo sharaxnay sida loogu adeegsado Adobe Premiere Pro hore waxaan kaga soo hadalnay sida loogu isticmaalo Adobe Audition waxaan maanta muuqaalkan idin kula wadaagi doonaa sida loogu isticmaalo Adobe Premiere Pro qaabka ugu wanaagsan marka daawasho wanaagsan marka hadda ugu horreyn waxaan soo furanaynaa Adobe Premiere Pro geena ayaan soo furanaynaa markaan Adobe Premiere Pro geena aan soo furano ugu horreyn marka workspace kan anaga ayuu noo gaar yahay marka workspace oo by aniga ahaan aan iska yara samaystay waaye marka haddii aad danaynayso sida loo samaysto workspace muuqaal hore ayaan kaga soo sharxay qaybta sare ayay kaga soo muuqan doonaa marka ugu hore markaan isla fahmnaa NS1 muhiimadda anaga noo leeyahay muhiimadda ugu weyn oo noo leeyahay NS1 wuxuu yahay in codkeena uu shucaaca uu ka bixiyo waan wada ognahay softwarada Adobe Premiere Pro Adobe Audition in ay leeyihiin effect loogu saaro noise-ka balse sidaas iyadoo ay tahay ayaa badanaa waxaa la adeegsadaa plugins marka softwarekani waa plugins marka plugins waxaa la yiraahdaa waa software kaas oo ku dhex shaqeynayo softwarada kale kaligiisa laguma shaqeyn karo marka haddii aad danaynayso sida loogu isticmaalo Adobe Audition muuqaal hore ayaan kaga soo sameeyay qaybta description-ka ayaad ka heli doontaa insha Allah marka haddaan u soo gudubno muhiimadda cashirkeena sidee ayaa loogu isticmaalaa Adobe Premiere Pro ugu hore marka codkeena waa midkani sidaad u maqashana xoogaa yar noise iska yaryar ayuu wataa bal aan isla dhageysano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin wada salaamay walaalaha ku xiran channelkeena Zack Multimedia runtii aad iyo aad ayaan idinkaaga mahadcelinayaa la socod sidaad hadda aad maqlayso xoogaa yar codkeena ma wanaagsana waayo haddii hadda codkan aan effectiyo fara badan aan ku yara daro waxaase laga yaabaa in codkeyga uu noise fara badan uu ka soo baxo marka saysan sidaas u dhicin ugu hore marka noise-ka ayaan ka yara saaraynaa anigoo adeegsanayno software-ka NS1 waana plugin sidaan hore kuugu soo sheegay ugu hore marka waxaan tegaynaa audio track mixer-kaas ayaan tegaynaa ugu hore marka waxaad fiirinaysaa waxay tahay codkaaga intuu ayuu yaryaalaa traage ayuu yaryaalaa marka anaga traga uu yaalo waxay tahay A1 marka adiga waxa ku yar hoosey waxay tahay A1 kani A1 kan level kan hadaad sare u qaad codkaaga sare ayuu u qaadmayaa laakiin haddii hoos aad u soo yarwato volume kan codkaaga uu xirmayay gabi ahaantiisa sida ujeedo adiga kuma soo muuqanayso calaamadani sida tan ah kaliya waxa kuu soo yara baxayo qaab oo sidaan oo kale ayaa kuu soo yara baxayo marka ugu horeyso marka si aad qaabkaas kale aad u soo bixiso waxay tahay falaartaasi meesha ku aadan ayaad click ku siinaysaa si ay qaabkani kale oo kuugu soo muuqdo kadib marka intaan track 1 track 2 track 3 oo kale ayay u yar taagan tahay laakiin kaliya ah A1 ka kaliya ayuu khuseeyaa ma ahan A1 A2 A3 ma khuseeyo A2 ga inta ayaad ka raacanaysaa A3 gana inta ayaad ka raacanaysaa effectidiisa marka ugu hore markaad waxaan soo gashanaynaa NS1 ka kaliya waxaad leedahay meeshaas falaartaasi ayaad ku yara dhufanaysaa kadibna VS3 VS3 markaad tagto kadibna waxaan kasii xolanaynaa restoration kadibna waves kadibna NS1 marka meeshan sidaad ujeedo qaabkani ayuu noogu soo bandhigaya kaliya in calaamadan anagoo kiligta ahayn inaan sidan kaliya aan tirada aan ugu yara darsano marka haddii aadan qaabkani danaynaynin oo qaabkan aadan rabin aad rabto softwareka muuqaalkiisaba inuu kuu soo yara kaco kaliya NS1 kaasi meesha ay ku yara qoran tahay ayaad double click siinaysaa markaad double click aad siiso kadib qaabkii aan ku naqoonay NS1 ka interfacekiisa ayuu noo soo bandhigayaa kadib marka sidaad ujeedo haddii calaamadani aan sare u qaadno mar walbo codkaaga balay dheh waxaan isticmaashaa earphone marka hadda waxaan geysanay 10.2 ayaan geysanay hadda play haddaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waa idin wada salaamay walaalaha ku xiran channelkeena Zack Multimedia runtii aad iyo aad ayaan idinkaaga sidaad ujeedo NS1 ka si wanaagsan ayuu ugu yara bixiyay noise-kii yaray ku yara jiray haddii tiradani hadda 10.2 sidaad ujeedo meeshan waxaa ku yara yaalo FFX haddii FFX kani haddaan click aan siino effectigana ma saarno codkaaga laakiin hadduu caddaan yahay effectigaaga wuu yara saaran yahay laakiin dadka qaarkood ayaa waxaa laga yara yaabaa in
haddii electaas ay ku yara dhuftaan VS3gani in uusan u shaqaynaynin VS3gani inuu u yara shaqaynaynin waayo pluginska kuma active gareysna Adobe Premiere Pro haddii ciladaasi ay ku qabsato laakiin haddii anaga hata sidan general aan ugu shubni waaye Adobe Audition kan kuma aanan active gareynin asaga ayaa si automatically ahaan isku soo yara qabsaday haddii ciladaasi ay ku qabsato in VS3gan uu ku furmi waayo kaliya marka waxaad leedahay edit kadibna waxaad ka sii xolanaysaa preference kadibna waxaad ka sii xolanaysaa audio markaan hadda aan audio aan ku dhafano sidaad meeshan hoos aad ugu jeedo audio plug in manager waa qaybta hoos aan ka tagi jirnay Adobe Audition-ka marka asaga ayaad ku yara dhufanaysaa kaliya marka meeshan waa isku yara mid waa qaabkii hore kaliya waxaad leedahay scan for the plugins marka pluginskani wuxuu ku jiraa Telegram channelka Zack Multimedia haddaad Telegram channelkaas aad booqato waad ka helaysaa waxaan aan sheegay pluginsadan waana file pluginso fara badan ku yara jira scan kaliya ayaad leedahay kadib asaga ayaa automatically aan fig isku soo yara saari doono kadibna okay ayaad la yara leedahay kadibna okay si markaasi sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu meeshan VS3ga ku active gareyn doonaa insha Allah waxaan sidoo kale aan idin ogeysiinaa waxay tahay koorsada Adobe Premiere Pro in ay halkani ku yara eg tahay insha Allah isbuucna soo yara aadan waxaan bilaabi doonaa sidaan ku balansaneyn Adobe Photoshop iyo Adobe Audition su'aalahooda ayaan soo gabagabayn doonaa waa dhowr su'aalood ma yara badna waa ku dhawaad adiga 4 su'aalood ama 5 su'aalood oo kale ay yar gaarayaan kadib marka waxaan qorsheyn doonaa softwareda markaasi aan bilaabi doono marka dhowr software ayaa ii qorsheysan marka insha Allah softwaradaasna waan idin wadaagi doonaa marka midka uu u bato codsiga ayaan soo gudbin doonaa marka insha Allah sidoo kale waxaad ka raali noqonaysaan dadka inta badan fariimaha ii soo yara qorayo sida gaar ay la soo hadlayo in aan arimahooda waqti xaadirkan aan u xalin waayo laakiin mar dhow waxaan rajeyn doonaa in aan sida ugu dhaqsiya badan aan ugu soo yara jawaabi doono waayo problems yar ayaa iska yara jiro marka insha Allah waxaan rajeyn doonaa marka insha Allah bartani xiriirkeedana aad iyo aad ayaan u sii wanaajin doonaa insha Allah videogan intaan inaan ku soo gabagabeynayaa fadlan haddii ay tahay marka kuugu horeyso aad na soo booqatay fadlan subscribe saar furo calaamada gambaleelka si ay kuugu soo yara dhaca muuqaal walba aan soo gelino oo channelkan inta badan waxaan uga hadlaa arrimaha multimedia inkastoo dad badan walaalaha ay la wadaageen in aan ku soo yar kordhiyo Android-ka waan ognahay Android-ka dad fara badan oo walaalo fara badan ayaa yara sharxaan marka haddii aanan ka aamusno dhankan iyo kombiyuutarada yaa noo sharxi doono intaasi ayaa igu kaliftay in aan inta badan aan sharaxo computeriska marka insha Allah mar dhowna waan rajeyn doonaa in aan ku soo kordhin doono Android-ka marka haddaad ka faa'iido videogan la guray si YouTube-ka videogan u faafiso oo na sii gaarsiiso walaalaha kale lana wadaagan asxaabtaada muuqaalkan si ayagana ugu faa'iideystaan ugu dambeyntiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh